soo dhawaada waxa dhacay anaa nii sheegi doono. I think somebody was trying to hack into my system. laakiin way ku guuleysan waayeen. Asalaamu calaykum. Anoo nila hadlaayo ayaan systemka la isku dayay in systemka la isku dayay in laga hack gareeyo, but it didn't work. Marka linkiga waan sii doonaa Saida. Salman waa nii socon weysa. You couldn't hack. You couldn't hack the system. Marka the firewall here is very strong. So don't attempt to do that. يعني hacking aniga meeshaas waxba igama qaadaysaan. You've tried everything else. haddana ma hacking aan nafka doonteen. Wallahi billahi, you're so funny. qof nii joojinaya mal, nobody is going to stop. Marka don't waste your time. Isla markiiba I was able to retrieve and continue. Marka waxaan let me quickly read for you and then waan niga tegaya. Laakiin waxaan rabaa linkigana waan siin doonaa. Waxay leeyihiin marka wax la gadayo ama la xaraashayo waa waxyaalo waxaa jiro terms agreementiga inay ku jiraan laga rabo oo go'aan lagu gaaro. In this case hadda meeshaan fiscal terms ayaa la dhahaa. Fiscal termska meeshaan waxay ku soo qoreen waxay u kala baxaan wax la yiraahdo royalty. Royaltyga waxa waaye had ka soo qaado kala buug haddaad qortid markastoo buuggaas la gado wax يعني a certain amount of income ayaad adigu helaysaa oo royaltygaas aad ka helaysaa. يعني royaltyga ayaa meeshan ku jiro, waxaa ku jiro waxay dhahaan production sharing iyo corporate income tax ayay u kala saareen. In addition to that waxaa ku jiro wax oo bonus la yiraahdo. waxaan u maleynayaa hadda waxa oo maantadan Spectrum ee London ku subinaysa waxa waaye markii maartay la helo dadkii xaraashkaas lacagta bixin lahay naftirkooda waxay heli doonaan wax bonus la yiraahdo. dawladda saxiixaysana wax bonus la yiraahdo ayay heli doontaa ama wax loo soo hormariyo oo yani almost like qof waad aragtay agent oo kaleeto markuu wax keeno ama shaqaalaha oo shaqada si laga rabo si fiican u qabto an extra bonus la siiyaa. So fiscal terms kan waxa ku jiro bonus in la siin doona oo laga yaabay waxay dhaheen most blocks will have a signature bonus of $2 million. marka haddii 206 block ay gadayaan oo halkii block 2 million lagu soo siiyo yani lacagtii oo ay ku soo shaqo tagi lahayn ku soo dagaal tagi lahayn ama iskugu diyaarin lahayn the 2022 maxaan ku dhahaa the upcoming elections ka lacagtii ku imaan lahaayeen. I think they're trying to get it this way. bonuskaas inay ku helaan ayay isku dayayaan, and I think it's so that they can come back next time ayay ku dadaalaan. marka inta bonuskaas ku qoran oo lagu leeyahay halkii blog wuxuu leeyahay a signature bonus of 2 million ayaa meesha ku qoran. waxay dhaheen some of the most attractive blocks may have higher bonuses. marka blogga haddii maarata batroolka uu ku badan yahay ama meel fiican uu ku yaalo oo waxyaalo kaleeto faa'iido kaleeto ay kasii heli karaan bonuskaas oo 2 milyan kor inuu u kaca ayaa loo badinayaa. That's one thing ay meesha ku sheegayaan. waxay dhaheen soo saarka ama productionka wax bonus oo lagu siinayo ma leh, laakiin blogga naftirkiisa ayaa halkii blog 2 milyan lagu siisanaya. 206 blog waaye waxay rabaan inay xaraashaan midkiiba haddii ay ku helaan 2 milyan kuwa kaleetona ka badanayba laga yaabaa inay ku helaan. waad dareemi kartaan waxa ugu wacan in hadda dadku
ay waasheen ay rabaan sida ugu degdeg badan leh inay wixii xaraashaan ayadoona nidaam uu jirin oo aad maaragtay loogu hanweyn yahay in auctionka la suubiyo waxaa meeshan ku qoran terms of fiscal termskan waxaa ku jira wax ay service fees ay dhahaan waxaa loo baahan yahay we need a very good lawyer who maxaan ku dhahaa can really have a look at this kind of things because anu waxaan aaminsanahay we can even get more for these things waa haddii la rabo dalkaas in wax lagu qabto oona shakhsiyaad gaar ayna rabin inay waxa jeebka ay gashtaan ama ay cunaan marka waxay ku leeyihiin service fees are $100 per square kilometer per year during the exploration and the appraisal phases and then 500 during the development and production phase يعني حتى جاء service fees كوي ببلابين بدد إني سيان وحنا مسنا maybe some of the people in this regime حتى أو إني هلين this service fees كسبوتها مركي سهمنت اللي صوبينايو $500,000 أي كوبحناين سهمنت $500,000 $500,000 US أي كوبحناين سهمنت يو waxay ku leeyihiin fees oo halkii square kilometer waxaa lagu bixinaa $100 ku dhufo waxaad arki doontaa waxaasi wax ka badan inay ku baxaan Omar Osmano waa isku naxda umleena agreementgan you know it's a public agreement ma waxaas leedahay beenbeen waxa oo lagu socodsiinayo ama si hoos hoosay luckily this is a very transparent process waxa waan helaynaa waan haynaa marka walaal runta haday ku dhibayso meeshaan waqtiga iskaga dhameynine meelaha oo beenta loo sheegay iska aad meeshaan runta looga hadlayo marka waxay dhaheen training iyo social contribution iyo administration fees no u kala bixiyeen waxay dhaheen they are contributions for training and social programs marka social programs waxa hata laga dhigi karaa waxaan maqlay dad oo dawladda ku jiro oo dhahayo waxa London ka jiro waa workshop يعني حراجك workshop ay u bedeleen marka meeshan waxa ku qoran yani training and social contributions marka waa laga yaabaa that's another way of also getting some money out of this royalties ka waxay ka hadleen si fiican meeshan ugu qoreen waxay dhahan royalties are determined for each development area in the contract area the royalty rate is based on the sum of the rates based on a daily production scale and a scale based on the value per barrel at the measurement points يعني وضد وبرتي they're using very technical words and somebody who is probably familiar with this ogaan karaa waxay ka hadlayaan laakiin in any case waxay ku leeyihiin the minimum waxay ku dhahan this means the minimum royalty is 5% and the maximum royalty is 35%. يعني the minimum royalty is 5% and the maximum royalty is 35%. adigu depending on how you negotiate يعني royalty-ga meesha ugu sareyso aad gaarsiin karto waxa waaye 35% inaad ku heshid marka haddii aanba la ogoleyn in hataa inta la fadhiisto oo si degan negotiationskan loo suubiyo oo waan qabnaa dad oo waxyaalahan ku takhasusay oo hataa dadkii maxaan ku dhahaa lala tashto tiimkan hadda imaado London hataa ma ay qabaan experts oo waxaan ku takhasuseen ma qabaan marka waa laga yaabaa in si oo maaragtay fudud waxa lagu hoos mariyo banaanka lagu soo dhigo but then again haddii adigu interestigaada la uu yahay wax inaad jeebka gashato you don't even care why would you even care about that production sharing kana way ku soo qoreen meeshan corporate income tax kana way ku soo qoreen waxay dhaheen the corporate income tax is levied on the contractor share of profit on the generally waxay ku dhaheen applicable tax rate which is currently 30%. يعني waxaa laga yaabaa boqolkiiba 30 inuu noqdo haddana meeshan waxay ku sheegeen in ay jiri doonaan canshuurooyin kaleeto oo inta ay ku faahfaahinin ay usii hoosgelin
waxay dhaheen contractigan wuxuu leeyahay wax fiscal stability la yiraa oo ah haddii wax kale ay dhacaan ama dagaal uu dhaco ama rabsho kale ay dhacdo they have a way oo maaragtay ay ku guarantee gareyn doonaan waxay lacagta ay ku bixiyeen waxay xaraashteen ama xaraash ay ku gateen sidii ay u ilaalsan lahaayeen ee waxooda uga soo saaran lahaayeen clausa meeshan ugu jiro waxay dhaheen as part of the design yani agreementka markii la suubinayay waxay ku garab dhigeen agreementyaal kaleeto oo meelo kale dalal kaleeto lala galay marka intay hadda waxay ku sheegayaan chart ay leeyihiin ay kusoo saareen dowladaha agreementiga ay la galeen iyo waxyaalaha ay kala kulmeen ama lacagta ay meesha ka soo saarteen Soomaaliya haddaad fiirisid yani the minimum terms of Soomaaliya haddaad fiirisid meeshan waxaa lasoo garab dhigayaa Lebanon, Angola, Brazil, Egypt, Ghana, Indonesia, Mexico, Norway iyo Mareykanka ayaa lasoo garab dhigay oo la fiirinayo waxay leeyihiin يعني Soomaaliya hataa waxay ka sareysaa in terms of wax soo saarka ama lacagta meesha laga heli kara ama ooliyada meesha ku jirta waxay ka sareysaa ay ku leeyihiin Mareykankii ka sareysaa Mexicona way ka sareysaa hataa Brazil way ka sareysaa Ghana ka sareysaa on par waxay la tahay on same level ay la tahay Lebanon waxaa markaa ka sareyso Soomaaliya waxaa ka sareyso maxaan ku dhahaa Indonesia Egyptna waa ka sareysaa Angolana way ka sareysaa Norwayna way ka sareysaa marka in terms of runtii yani wax soo saarka ama khayraadka ama petroolka iyo gaaska aan leenahay on top of the world ayaan ku jirnaa the top parts of the countries ay evaluate gareynayaan waxay ku dhaheen I'll share this link akhrista raasada akhrista I think it's better that way waxay dhaheen the chart shows the government take for an oil price of $70 per barrel waxay ku dhaheen and costs at 20 umalayna $1 billion for barrels oo ka range gareynaya from 50 to 200,000 million barrels marka waa nii soo dhigaya idinku akhriso during your timekiina arka laakiin shaki kuma jiro inaan leenahay petrol oo aan leenahay gas oo weliba dalalka very established ahoo aan maaragtay haddaanaba ka sarayninba aan on par aan nahnay taasna waxaa waaye alxamdulilah waa arrin aad iyo aad it's good news inaan hantidaas aan leenahay so I'll share the link and it's out there and then for you if you're still interested also in spectrum inaad ogaataan spectrumka yeeyihiin dadkan oo dalaalka hadda yeeyihiin waxaa la dhahaa spectrum geo ayaa teamkan la dhahaa but I will also put the link there oo idinku aad si toos intaad u gashaan aad uga akhrisan kartaan u fiirsan kartaan so and markaad akhrisaan it is very clear that actually waxa maanta ka dhacay London inay yihiin xaraash la bilaabay the bidding process has started waa anigani lahay they will go to some other countries oo hadda markii laga soo tago Ingiriiska meelo kaleeto ayaa la tegi doonaa surveygina sahminkana waa la sahmiyey waa la subiyey it's been done waa nii soo wada dhigaya marka intaasaan rabay inaan nigala hadlo si aad u ogaataan wixii la rabo hala sheego but xaraash waaye waxaan ka hadlayno we are not talking about anything else
now the issue waxa waaye waqtigan xaadirka lagu jiro wax ma xaraashi karnaa and are we really in a position to do that dadka hadda joogo baddana 31 shati ku gaday 1 milyan ma lagu aamini karaa petrol that's what we are very worried about waxaan aaminsannahay inaana lagu aamini karin based on their track record iyo maxaan ku dhahaa wixii ay badda kusoo suubiyeen we don't trust that they have the ability to do that therefore waxa kaleeto waan u dulqaadan karnaa waan ka jeesan karnaa but xaraash lama ogolaanayo hantidana lama xaraashayo lamana gadaayo that we will not allow marka waa ku mahadsantihiin dadkii hadayta iyo meeshaan ku jiray oo anoo lifeka ku jirana aan isweynay systemkayga waxaa la isku dayay in la hack gareeyo but it didn't work marka luckily maxaan ku dhahaa waan retrieve garaynay qaybta koowaad waan soo dhigay oo it's there marka check it out marka dhageysta but insha Allah isku soo noqon doonaa waa is arki doonaa abaay farxiyo meeshaan qabiil dadoo ka nacnacsiinaya loogama baahna dalka in la xaraashaayo walaal dadkii xaraashaya muqaliskiyaaba sheegaya adiga maxaa ka taqaanaa ka hadlaysaa sheegaysaa farxiyo abaay waxaan hadda aqrin karta ortaga oo soo aqriso muqaliskiyaaba internetka alaabta soo dhigay oo sheegaya adiga ma anaga hadda inta noogu imaata waxaa noogu sheekeynaysaa wax la xaraashaya male ma waxaasaa rabtaa inaa noogu sheekaysta luul abaay waa isku dayaya but somehow kuma jirto meesha kuma arko I can't do that marka dadka meelaha oo indhaha iska xiraayo ooynayo meesha ka soo qaylinayo leh beenta la joojiyo muqaliskii aad soo adeegsateen ayaa wixii internetka soo dhexgeliyay so what are you talking about wax kaloo macquul haddaa sheegaysa sheeg abaay macaan laakiin wax kale ha noola imaana meesha waa run waa laga yaabaa hataa abaaya dadaan aqoontaas aan lahayn inay yihiin oo iska hadlayaan but it's very sad haddaad wax aqrin karin talas anakaa ku aqrinayna laakiin meeshaan waxyaalaha banaanka aala taagantaa don't bring it here so let me see Luley haddaan meeshaan ka arki karo maba kuu jeeda abaay somehow waad mahadsantihiin waa run luul abaay waa runtaa abaay leylo maasha allah waa runtaada waa mahadsan tahay let me try haye hadda isku day luley hadda try gareeya okay haddaan ku arkay okay luley waa run maxamed ismaaciil aadam abo waa runtaada that's the linkiga waa kaas
ما أقان وحو لولا يكو جديدان يا it's okay I can't do that ما صوب من كرا لولاي بل bahalkan waxaa ku xiran apps iyo waxyaalo oo limitka iyo waxayo ilaalinayo so it's not allowing me lakin insha Allah mar kaleeta laga yaabaa inaan maaragtay habeen ayaan soo geli doonaa hadduu ilaahay nafta ugu sumo runtii just idinka specifically aan igu talagalayo oo aan nisoo qabanayo aad maaragtay aan isla hadli doono I'll try and do that but in the meantime inshallah linkski iyo wixii waan nii soo dhigayaa si aan u aragno hadday shaqaynayaan iyo aad access garayn kartaan laakiin informationkan waxaan nasiib ku leenahay informationkan waa accessible oo banaanka ayaa laga helayaa haddaad isku taxaluujisid informationku waa heli kartaa marka waad mahadsantihiin walaalayaal aad iyo aad u mahadsantihiin sida maaragtay oo sharafta leh aad igula socotaan aad igu dhageysanaysaan mar dambaan isu dambeyn doonaa Sacuudiya haddaan linkska soo gelin doonaa insha Allah walaalay Zahro Abay ha caaynin madaxweyne Farmaajo yani dadkan mas'uuliyiinta waa dadan mas'uuliyadda u dhiibanay inkastoo anaka aan si xalaal aan ugu dhiibin laakiin meesha inoo fadhiyaan sharaf ay naga mudan yihiin waxaan isku gefi karnaa oo isku dagaali karnaa maxaan ku dhahaa siyaasad iyo waxyaalo kaleeto laakiin sharaf ay naga mudan yihiin yaan caaynin yaan aflagaadeynin magacyo xun yaan u isticmaalin I don't think it's right waxay naga mudan yihiin qadarin iyo xishmeyn marka let's always remember dadkan aan ka hadlayno these are our leaders si kastaba ha ahaato we might differ on politics and policies but ultimately yani waa inaan ku xishmeynaa meesha ay fadhiyaan hoos iska jurbi haddii la rabo laakiin in a respectful way marka anigu taasaan aaminsanahay insha Allah waayo walaalayaal khayran iyo rajaynaa let me put the links mar dambe aan isu dambeyn doonaa hadduu ilaahay nafta nagu simo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh